أبي أحمد أو كعد صدي لابا تكريجا إني أسياس فوقي لو وران إني أحمر كل الجبهة فانا اللي ده لو وران تكريجا والله بدي بديدي أسوي مركب مقلبة أدوح ويرى معيد بكحيسة ويتضع على يوتيوب كتير شاي واقو أحمرك حيسة كذا كويرة قيس توبيان قيس توبيان هتاس كل عوان كل يكسو أي ما ينو لو قيس كلا ساق حيسة مويان ويا رح دنا وحول وروح هرتان روان سينه أحمر إلى الجباء شلو أحمر إلى الجباء إلى أولية أحمر الشلة تيجي لو ورتي ما أنت ليه قبل الذي منك عليك سقاطة إلى أولية ويديدين قعمي كلا maxaa ku dhahay ku shirkoobay faano tikre iyo asyaas saddexda iyo oola oo hoosta ka yar og oon aad ahayn laakiin oromanimada reereebaysa taladan ay xildhibaanada Soomaaliyeed soo qoreen xildhibaan Soomaaliyeed waxa jira talo soo qoray ah in Soomaaliya ay qaadatay doorka ah gudaha Itoobiya in farageliso oo ay kala dirto oo ay isku dirto oo qolo walba qolo xanaaqsan Soomaaliya inay axmaaradana lacag siiso tikreegana lacag siiso kurtina tiraahdo ka kala dumi iska wada hor keento doorka hadda shaqada oo hadda hayo ninka la yiraahdo Afwarq shaqada inay Soomaaliyana u banaan tahay. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh kun wanaagsan saaxiibayaal ku soo dhawaada barnaamijkan oo si toos ah uga daawanaysaan RTV Karabada TV ee DJ Cable. Barnaamijka qaybtan waxaynu ku eegaynaa gudaha Itoobiya waxa sii xoogaysanaya khilaafaadka u dhaxeeya qowmiyadaha kala duwan ee dalkaasi gaar ahaan kuwa ugu tunka weyn sidoo kale waxaan eegi doonaa taliyaha ciidanka militariga ee dalkaasi Itoobiya oo dhawaan sheegay in cadow dibadda ah uu dhaqaale ku bixinayo si Itoobiya ay u burburto sidoo kale waxaan eegi doonaa siyaasiyiin Soomaali ah oo dawladda Soomaaliya kula talinaya in gudaha Itoobiya ay ka dhax kalluumaysato maadaama khilaaf uu ka jiro oo ay macnaha dabka ku sii وأنا سودو وأنا توبي ورطة مرة هوري أجنو حرف واسع وحنا وين إن سد حكومي دود هذا أنت بدنا نسوي هاي سد توبي مرة تكريجا يو ورمضو ومدة متكلم ومرتي أي سهية والله بقى يسجل يسوي هاي حاجة هذا حالكم مرة حول عصبة صوب حياة وكذا مرة دي تكريجا هذا هنا وهذا أبي إن ودونيو إن تكريج وحلو فسسي ووير وقاضو إريتريا بالحكتاس حكتاس عمرسا أما جودها إثيوبيا هذا سي جود المرة أحمر دي ودجالك كي جوليستي أفن ترجعها إثيوبيا أما أبي أحمد إثيوبيا يعني لدينا أبي قبل كأحمر ده أحمرده مامل كذي أو مامل كبي بي أحمرده أو تكرر هذا نويري. وحقيقي جو كويرتي. مقالوين أي دجناي وأكوي تطلعت كي وركويري تكرر وير كلها. أقول كلاه كلها يستاه. أحمرده شفت هيدا فانو يتكرر جو هذا نوضع هذا الأسعد. ما أبي مكسوب هاي سنة. أبي مكسوب هاي سنة. هاي. أبي أحمد أو كعد صدي لابا تكرر. إني أسياس فوقي لو وران إني أحمر كل الجبهة فانا اللي ده لو وران تكرر والله بدي بديدي أسوي مركب مقلبة أدوح ويرى معيد بكحيسة ويتضع على يوتيوب كتير شاي واقو أحمرك حيسة كذا كويرة قيس توبيان هتاس كل عوان كل يكسو أي ما ينو لو قيس كلا ساق حيسة مويان وأتقن إثيوبيا كجرا أبي يتضع دجالك تكرر ويرى حول نمايو أسياس فوقي عدو جيني سوتشرين كها إلى وير إنه بعض دونني. أبي تقرأ وقدر البضي. عدو ودي سوتشرين كه. السلام بسيء بعد ما يقول الله دي إثيوبيا ودهم مرة كهست. بدي عصبنا كهست. إنه يكون والله تعالى ما هو إن محقول هيك بدهنا يسوق الرصدان. أسقيه تقرأ إن إثيوبيا كلا. مرك إرتري ويركو قادم. إرتري ويركو قادم. تقرأ ودك جلق من السين. ويا رح دنا وحول وروح هرتان روان سينه أحمر إلى الجباء شلو أحمر إلى الجباء إلى أولية أحمر الشلة تيجي لو ورتي ما أنت ليه قبل الذي منك عليك سقاطة إلى أولية ويديدين أي والله تشيره ومركب تكراجي ويسوي حسر يشوفني دقيقة معه أبي مركب يتكلم كلا فوقاده أبي يرتري كلا فوقاده
axmaaro oo TPP dahayd iyo tigreera kala dhinte jabhadii iyo tigreegiina waa la isku soo wadaa wada hadalla u socda siyaasa Afwerqi iyo tigreegii jabhadii axmaarada ahayd ee faana ahayd dhowr boqol oo maxaabiis oo tigreer haystay shalay wareejisay faana wareejinayso tigreer ku wareejisay waa dhacday aad la yaab u leh isku soo dhawaashadoodana muujinaysa markii soo dhawaanshahoodu wuxuu u yahay calaamad in ay abi had doonayaan iska bahaystaan oo ay isku dhinac maraan ayuutadii dhan kale u wareegtay waxay u wareegtay tii abi waa shaqo weyn gacmihii kale waxaa maxaa ku dhahay ku shirkoobay faano tigree iyo asiyaas saddexda iyo oola oo hoosta ka yar og oon aad ahayn laakiin oromanimada reereebaysa laakiin hoosta ka yar og ayuutada hadda intaasaa ku jirta waxaa keligii meel taagan abiy aan u iman doonaa afartan markaad sheegtay oola inay hoos ka og tahay saddexa kana hadda ay waxooda banaan keeneen ujeedkooda muxuu yahay waa in abiye la dumiyo abiye in la dumiyo iyo waxa la jooga salka in la geeyo weeye waxaa kaloo xusid mudan abiye wuxuu yidhi wuxuu heshiis la saxiixday musabix waxay ku heshiiyeen in badii la siiyo abiye jabhadii oromada ahayd ee dad isaga ugu xigtay abiye ah oo saxaafeed bay soo saareen war anagu soomaalida kane lama geli karo war dagaal lagama geli karo war mimmoo yaale ilaa iyo meesha kaleed og tahay dhanka kale ah halkaa dhuuntanada wax uu soo maro soomaali baa naga xigtay war dadkanagii wada tuugsanayay hargeysay joogaan muqdishoy joogaan gaalkacyay joogaan boosaasay ugu badan yihiin war anagu dakana soomaaliyeed hadda diyaaruma nihine dadna ma rabnee haddii aan wixii noo soo marada hello wixii noo soo maro yaan lanaga xidhin cabdiraxmaan haddii abiy axmed ay isu bahaysteen tigrey axmaaro iyo eritrea iyo oolo iyadana waxaa weeye jugta hoosta kaga haysa oo le etoobiya soomaaliya badda lama aadi kara leh soomaaliya daris baan nahay wixii aan cunayna iyo nafcigiiba iyagu noo soo marayaa xaalku hadduu saa yahay oo keliya hadda maalin cidlaha uu taagan yahay maxaa la gudbin isaga hadda waxaa la gudboon wuxuu soo diray abiye wasaaradda arrimaha dibadda Ethiopia wuxuu u diray National Election Board-ka la shaqeeya xisbiyada ama xarunta xisbiyadu hoos tagaan wuxuu ku yidhi cudurka waddanka haya iyo dawadiisi soo weydiiyey xisbiyada xisbiyada mucaaradka xisbigii dhibka wada muxaafidka ahaana shirkii uu ka maqan yahay hadduu yimaado wala dhagax tuuri xisbigii sartu ka qurmaysay yaan meeshii imaanin kuwa aan waxba bi'inin oo iyaga la wada dulmiyey yaa la yidhi kaalee wasaaradda arrimaha dibadda u timid wax sheega bay yidhaheen halka waddanka waxay yidhaheen cadow dibaddii horta ma jiro darisyaduna cadow ma ah xisbiga talada haya unbaa waxa samaynaya xisbiga talada haya unbaa hawshan ka shaqaynaya fidnadu waa isage isagoo dhibka haddaayay waxaa kaloo sheegeen annaga ka xisbiye ahaan sababta aad noogu yeedhaani waa inaan isu nimaadno wejiyanadana aad sawir ka qaadataan wax alla waxaad rabtaanna aad ku dulqortaan inaan ka heshiinay iyadoon laga heshiino tigreega markii la weerarayay xisbiyadii waddanka oo qaar diideenba oo yidheen tigree in la weeraro in lala hadlaa ka habboon oo lagu kala qaybsamay yaa waxaa lagu qoray dhammaan xisbiyada waddanku waxay ogolaadeen in tigree lagu duulo heshiiskii baddana waa kii lagu qortay sidoo kale haddana waxaa la yidhi heshiiskii badda dhammaan xisbiyadu waxay ogolaadeen in badda la aado marka walaale sawirka naga rabtaan waa isfahansannahay inaan isdhibaataynin iyo kabtaana ka yidhaheen abiye marka xanuunka waxaa la yidhi fardaha gala haddii laga gubo cudurka dameeraha gala haddii laga gubo fardaha dawada lama gaadhayo moogta cudur waddanka gudihiisa uu ka abuuray iyo dibadda ka raadinaya inuu ka xaliyo oo Uganda heshiis la soo saxiixan Uganda heshiis la soo saxiixan xaggu ka boodiyo maxay heshiis la soo saxiixan inta oo dhan ee fakfag iyo orada ee Tanzania tagaya Ruto imaan wax la saxiixan waxana oo saxiix iyo qabo wax oo dhan ma ba jiro cudurku xagga guduhu jira gudaha oo ah jabhadii la heshiiyey iyo ururadii la heshiiyey wixii lagu heshiiyey in la saxo laga rumeeyo taliyaha ciidamada Ethiopia Burhanu Jilla
ما لو تو هذا وحيري عدو دبده هي دقاله كبخنايا Ethiopia ay burburto ee gudaha dhibaato ka jirto hadalkaas maxaa loo soo abiye ninka la yiraahdo Ibrahim Jula wuxuu og yahay taladan ay xildhibaanada Soomaalida soo qoreen xildhibaan Soomaaliyeed waxa jira talo soo qoray ah in Soomaaliya ay qaadatay doorka ah gudaha Ethiopia inay farageliso oo kala dirto oo ay isku dirto oo qolo walba qolo xanaaqsan Soomaaliya inay axmaaradana lacag siiso tikreegana lacag siiso kurtina tiraahdo ka kala dumi iska wada hor keento doorka hadda shaqada uu hadda hayo ninka la yiraahdo Afwarq shaqada inay Soomaaliyana u banaan tahay iyo kula taliyay oo aka marka fursada Soomaaliya fursada soo baxay shaqada ugu soo baxay awal hore waxa la yaqaanay Ethiopia Soomaaliya fargelin ku haysta hadda marka waxa la leeyahay Soomaaliya waxa u furan fursad ay Ethiopia u fargelin karto Faata weeyo tagay shalay maalintii TPLF bay ahayd maanta waa maalintii Soomaalida shalay hadii intii TPLF ay fadhiisatay Muqdisho dhaxdeeda ay oranaysay hogaamiye kooxeedyada hebel ku duul maamul goboleedyada hebel saaka u dhe maanta intay fadhiisato meel u dhow inay xukuumadda Soomaaliya ay xoogaga Etoobiyaanka ay iswada burburinayaan ay interestigeeda siyaasadeed ka dhaxraadsato waa doorka ugu muhiimsan ee Xasan Sheekh Maxamed uu qaadan karo yaa ku talinaya arintaas marka Cabdiraxmaan Shakuur qoraal dheer buu soo dhigay gudoomiye xisbi weeye xildhibaan federaal weeye ergi kale oo waliba siyaasad saameyn la weeye marka qoraalkiisa wuxuu yiri dawladda Soomaaliya waxa kula talinayaa inay qaadato doorka ah burburinta gudaha Ethiopia oo ay ka faa'iideysato fursadaha jiray wada hadalka u socda Tigreega iyo Axmaarada jabhada Faanada wada hadalka u socda Tigreega iyo siyaasad Afwarq iyo Eritrea iyo maxaan ku dhahay wada kala fogaanshaha Faana iyo maxaan ku dhahay Oola iyo Abiye iyo kala fogaanshaha Tigreega iyo Abiye oo ilaa dhowr jaanis Tigreega uu ka diiday Abiye Ahmed ama dhowr codsi oo la yimid oo ka diiday intaas oo dhan dawladda Soomaaliya waxa weeyaan fursado u banaan inay shaqo ka qabato diblomaasiyadda dibadda kaga adkaatay laakiin ay si daba ordama soo markii wuxuu leeyahay waa in dhaqaale lagu taageeraa qolyahan Abiye ka soo horjeeda si walbaba dhaqaale lagu taageero xoog lagu taageero sir lagu taageero siyaasad lagu taageero Soomaaliya lagu taageero iska waxaysan yahay oo badi difaaceeda xitaa ku wareejisay Turkiga maxay hadda ay Ethiopia gudaha ka qaban kartaa Soomaaliya waxna way ku awood badan tahay waxna inay ku awood yaraata laga yaabaa hadda ciidan fara badan oo wadan shisheeyo weeraro oo diyaarada iyo tasjiilaad iyo wax la daba socda inayna aad u helin baa laga yaabaa oo kor ahaan ciidanka maxaan ku dhahay lagaga awood bato wadan hadda soo kabanaya way laakiin dhaqaale fiican bay haystaa Soomaaliya dhaqaale badan oo wax badan ku burburin karto ay haysataa wadan dekadlaha xor oo caalamka oo dhan afka ku kala haya weeyaan ganacsatada Soomaaliya joogta yaa bangiga dhexe Ethiopia oo dhan ka lacag badan hal shakhsi oo ganacsada oo Soomaali ah yaa bangiga dhexe Ethiopia oo dhan ka dhaqaale badan oo ka lacag badan intaas oo fursado ay Soomaaliya haysato Ethiopia ma haysato dahabshiil kaligeed ايش dahabshiil xagaas ahayde tii kale hormud kaligeed bay Ethiopia oo dhan ka lacag badan dahabshiil Soomaaliya baa hormud kaligeed yaa ka lacag badan bangiga dhexe Ethiopia oo dhan iyo kaydka yaalada marka hal ganacsado Soomaaliya yaa Ethiopia dhaqaale ku burburin kara marka waxa Soomaaliya ka faa'iideysto marka hadda habacsanaadan gudaha Ethiopia ka jirta Ethiopia hadii wadada saxan ku aadi weydo hadii wadada saxan ku aadi weydo kuba aadi meesay in la burburiyo nin walba wuxuu ku burburin karo ku burburiyo waa wadada kaliya loo baahan yahay sababtoo ah xisbiga talada hayay xisbiyadii bal la gumaysanay xataa ay wuxuu la ogolaa taladoodii buu diiday taladoodii yuu diiday shacabkii deegaanka joogay iyo deegaamada taladoodii baa la diiday wuxuu soo baxay gumaysi dhab ah intii uu isyar dhanba suusinayay way dhamaatay Ethiopiankuna dhaqan bay leeyihiin TPLF markay qabsanaysa hadda dhowrtii sano hore dhulka is dhigtay dilada nabad uma walaashow aad loo bixinaynin wala siin laha dhulka is dhigtay maamul goboleedyo noqda iskiin isu maamula baba doorasha la galay deegaanka oo lifba ku guuleysay kalsooni baa abuureysay in yar markay tabareystaan waa gaal haduu tabareysto abeesa dadku risbo inta yartay ku cunimaysa kolka yar rawaatan ku bilaabay waa abeesa Ethiopia ninkii korsidan bay cunay in yar markay kortay hadana ku bilowday dadkii
waxaad ogeyd bay tii beelaftad ka maraysa kana yimid waa ka ogeyd ruux walba soo dhaweynay meel walba cabaadka iyo dhulis dhiga ka sameynay waa kii on lif ku yiri argagixisa maydaan ahayna ku argagixisay ka dhigay argagixisa la way qolo walba waa ka beer la xawsi ku sameeyay in yar markuu tabareystana waxa la yiri haduu durdur iyo dabaar galo doofaarku abidkii ma daahiro waa uu nijaas doofaar roob haduu ku daayo wuxuu moogta haduu nijaas ka samaysan yahay nijaastu ka maydhi mayso nijaasta haduu wuxuuba yahay hada saabuun may ka maydhi saabuun hadda si kasta u maydho waa saabuun ilaa ay ku dhamaato abi nimada ka maydhi mayso waa qayn soo garan abi marka dibkii noocaas ahaa ee u qarsanayay ay ku arkatay waliba in badan inuu sii qarsado 2 sano wax yar buu qarsanay oo la soo baxay sida daraadeed ma maydhmayo in la gooyo oo dawladda Soomaaliya ay qolasha noocaas qaadato weeyaan waajibka hadda matalan Muuse Biixi waagi hada dagaalkii insi u dhacay waa kii dhulka laga qabsaday reeysi dadkii buu mideeyo kala jeeday markii hore waa kii mideeyo loo bixiyay maalin xaasa waa kii aad lahayd xaqna waa ku dare xaqna waa mideey xaqna maxaa tiri firdhiye iska firdhiye abi ahmed marka ma oran karo waa mideey abi ahmed wuxuu mideeyay wax kasta oo shucuubtii dulmanayda Itoobiya ka soo horjeeday dhamaantood way soo wada keenay wada sax ku riday waxa kale oo abi ahmed mideeyay oromo oo muwaafaqo la'aan ahayd wuxuu mideeyay tigree oo qolyo wuxuu mideeyay axmaaro oo nisbe aqoonin intaas oo qolo Soomaalidii hadda inuu mideeyo yuma in yar boolo jira waayo Soomaali isku raacda fikir oo isku raacda wadaniyad sa isku raacda oo xildhibaanadu mooshin ayna akhrin ay gacanta u taagaan ma arag Soomaalidu waa dad dimuqraadiyad ay biyo dhigtayo waa inay ogaadaan aad u jecel mooshin aynan akhrinin bay ansixiyeen xamaasadda abiye uu ku beeray baa keentay waa nin aad ugu roon marka Soomaalida abiyo marka Soomaali mideeyo weeyo adowgeedii tikreegii axmaaradii soo jireenka ahaa oo dhan uu isku wada jabiyay qoys maanta Soomaali ka tabaruc kuma hadhin Itoobiya umadaas ha Soomaali marka fursad baxaysa Itoobiya fursad adag baxaysta abiye shaqada uu qabtay waa shaqo adowga Itoobiya oo dhan wax taro leh Soomaalidu ka tahay adoo kale ma jiraas dhig aad baa santa waxa dawada qolobka inta ay ku soo gabagabeynaa tan iyo kulan dambe nabadgelyo